wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Saleebaan Jaamac Diiriye ayaa furay kulan howleed muddo 2 maalmood ah oo ay si wada jir ah u soo qabanqaabiyeen wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hay'adda UNICEF kaasi oo dib u eegis loogu sameeyay isticmaalka miisaaniyadda ee wadaagayaasha wasaaradaha waxbarashada iyo caafimaadka. Kulankan waxa lagu soo bandhigay xog ururin laga sameeyay qoondada miisaaniyadda ee ay helaan labada wasaaradood ee waxbarashada iyo caafimaadku. Warbixinta ayaa diiradda saaraysa miisaaniyadda ilaa iyo 10 sanadood ee u dambeeyay ay heleen labadaasi wasaaradood iyo ilaa heerka ay gaarsiisantahay adeeg bixinta waxbarashada iyo caafimaadku. Waxaana ka soo bixi doonta talabixin tilmaamaysa meelaha adeegyadani ay ku hooseeyaan oo u baahan in la horumariyo iyo heerka ilaa iyo hadda ay gaarsiisan yihiin. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Saleebaan Jaamac Diiriye oo isagu furay kulan howleedka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Cabdirasaaq Jaamac Nuur oo madasha ka hadlaya ka warramay muhiimadda kulankaasi waxaana kamid ah hadaladoodii. labada wasaaradood aad ugu muhiima qaranka budgetka ku baxa dawladda aan ka heleen ama meelo kala gedsan ka heleen aynu doonaa in lagu falanqeeyo falanqaynta ay robotka maanta halkan iyo bireen u fadhiyo doona waxay noqon doonaan kuwii aynu ku tusaale qaadan lahayn ee mustaqbalka wixii maxaa la marka la budget gareynayo la og yahay ma waxba meelaha laga kabay way had iyo goor waxa dhacda duplication wax la yiraahdo marka dawladuna ay wax ku bixiso meel in hay'adaha kalena ama kala duwan ay ku bixiyaan si loo kala ilaaliyo oo wax walba maxaa la yiraahdaa ay smooth ugu socoto ayaa loogu talagalay in la helo xog sax ah oo isu dheelitiran marka وينو فرية محل هذا workshopku waxaan idin rajaynaynaa inaan iska dul marin asifi can u diristaan oo wixii common iyo wixii wanaagsan ay ka bedeli kartaan riboodada ay ka bedeshaan ama ku kordhisaan aad iyo aad buu mahadsantihiin shaqo wanaagsan labada maalmood waan idinka filayaa insha Allah inay soo saari doontaan laba arrimood oo muhiim ah oo ah caafimaadkii iyo waxbarashadii ayaynu maanta qorsheynaynaa bal waxa ku filan hadiiba maanta ay ooli lahayd Somaliland in la yiraahdo waxbarashadiina maxaa ku filan oo bal sheegta haba la dhigay waa in la og yahay horta waxbarashadeena maxaynu uga baahanay heerkeena joogto siyaasadaheedu waa sidee loo maamulaa budgetka ku filanna waa intee marka waxaan rajaynayaa maanta inay taynu fadhina yadii caafimaadku inay tahay hawl badan baa soo qabsoontay wasaaradda waxbarashada ahaan sourceska dhaqaalaha uu ka soo galo ama cidda fangaraysta waxbarashadu way badan yihiin stakeholders badan baan leenahay waxa koow ka ah miisaaniyadda dawladda oo kharash badan waxbarashada gelisa waxa qayb ka ah private sector-ka oo isaguna wax weyn contribute gareeya inkastoo aan la xisaabin waayo guri kasta oo maanta Somaliland kamid ah ama majority guriyaha arday baa ka kala lahda subaxii oo iskuulada tagta ardaydaasi ardayga ugu yar ee aan lacag laga qaadin ee la yiraahdo waxbarashadiisu waa bilaash waa qolada inuu primary ku sheegno at the same time bilaash maaha guri kasta oo Somaliland arday ka kala laho guri kastana arday baa ka kala lahayo in ka badan lacag baa la bixiyaa waalidku bixiyaa lacagtaasu meel kuma xisaabsaneen hadda ka hor marka taasuna waxa weeyaan private sector-ka marka aan leeyahay waa lacagta ay mujtamaca reer Soomaaliland bixiyaan agaasimayaasha waaxda miisaaniyadda ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Faysal Maxamed Xaaji Nuur iyo agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda caafimaadka ayaa iyaguna kulanka hadal ka jeediyay caafimaadku ballaaran yahay laakiin waxa jira key programs qarankana u ah priority inta maxay dawladdu kaga bixisaa partnersku siday u fangareeyaan marka kulaan u expectation-keygii markii hore markaan bilaabaynay review-ga iyo xogtu soo saaray imika uu exceed gareeyay expectation-keygii marka waxa laga yaabaa information badan oo aanan markii hore ka filayn oo noo muhiim ah health sector-ka ayuu noo soo saaray waxa kaloo muhiim ah inaynu saarno reportkan aanu inaga noqonuun dee waan soo saarno waan review gareynay laakiin inuu ka bedelo
nidaamkii aynu wax u qaybin jirnay resourceka u qaybin jirnay hadday noqoto regionada hadday noqoto within the sectorka meelihii la fangarayn jiray inaynu iyadana wax ka qayb aynu dowlad ahaan inaynu wax ka qayb qaadano oo aynu hago meelaha aan taabanayo kulley aan u baahanay technical discussionka inaan ka galno waxa weeye aniga caafimaadka reportku waxyaabo soo saaray waxa weeye wax la yidhaahdo waxaa jira catastrophic health expenditure waxyaabaha wuxuu soo saaray inay low yihiin catastrophic health expenditure marka waa jeebka dadka jeebkooda kala baxaya lacagta ku isticmaala caafimaadka inuu yar yahay buu soo saaray laakiin anna waxaa aaminsanaya inay tahay maadaama aynaan weli lahayn health insurance coverageka dowladdu ka fargaraysaana mainly primary health careka uu ku tiirsan yahay waxaan aaminsanaya inay meelaha aynu ugu badan tahay wadamada marka la eego catastrophic health expenditureka uu hayga yahay laakiin kole technically waan ka discuss garayn doonaa maanta waxaynu iskugu nimid shaqo insha allahu maanta iyo berri halkan inooga socon doonta shaqadaasoo ah in aynu lafaguro falanqayno ka doodno dubi eegis lagu sameeyey kharashaadka ama lacagta ay dowladdu ku bixiso labada waaxood ee ah ama labada wasaaradood ee ah ama labada qaybood ee waxbarashada iyo caafimaadka oo aynu eegayno insha allahu bal kharashka ay dowladdu ku bixiso iyo siduu yahay iyo qaybaha maxay haydey aynu kharashkaasi ku baxo iyo sida uu baxo isticmaalkiisu marka kolley waxa weeyaan waa shir muhiima oo laba ribood oo review lagu sameeyey labada qaybood oo midna waxbarashada yahay midna caafimaadka yahay ayaa inoo yaala labada ribood baynu doonayna insha allahu inaynu dul istaagno aynu eegno oo aynu xogtii xambaarsan yihiin aynu maxay hayday lafaguro sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay mas-uul ka socday hay-adda UNICEF oo ka warramay muhiimadda kulankan